afarlatii saac ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa la isla dhexmarayay xaflad loo qabtay dadka Kristanka ee ku nool khaasatan ciidan ku nool Somaliland taasoo loo qabanqaabiyay qayb ka mid ah meel ay ku cibaadaystaan oo kiniisada oo ku taala magaalada Hargeysa. runtii dadweynaha Somaliland ayaa isla dhexmarayay social media hub badnaada Facebook dadka wariyaasha markay soo dhigeen boostiyada iyo muuqaalada iyo warbaahinta laga diyaariyay in khaasatan ay ka qayb galaan dad ka caana Somaliland geeygeena. inkastoo ay ugu dambeeyay ay soo badinay dadka Kristanka ee ku soo badanaya Somaliland, laakiinse waxaan hore loo diiday in kiniisad laga furo magaalada Hargeysa. laakiinse si qarsoodi oo aan shacabka Soomaaliyeed laga qarinaya ayaa loo furay, taasoo markii mid ka mid ah UN-ta Somaliland u qaabilsan uu ka qayb galay xaflad kaasoo ka jeedinaya hadallo uu Somaliland uga mahad celinay sida wacan ay u xushmad gelisay khaasatan dadka Kristanka ee ku cibaadeysanaya masjidkooda, halkaasoo ka qayb galeen dad mas'uuliyiin oo ka mid tahay Dr. Adna Aadan oo runtii ah qof mas'uul oo isla waqti xaadirkan ah kaasoo Somaliland boos weyn ugu jira. laakiinse Adna Aadan oo ah qof mujtamaca dhexdiisa ku ah xubin ka weyn oo ka tirsan bulshada Somaliland ayaa ka qayb gashay xafladaas. sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka mid ah dawladda Somaliland ayaa lagu arkayay muuqaalada iyo sawirrada laga qaadayay. sidoo kale wariyaasha isla dhexmarayay dadka iyo sawirrada ayaa commentiga waxay ka buuxinayeen in dadka Somaliland ay qaarkood ku nool yihiin wadamadaas, laakiinse muhiimadda ayaa tahay in Somaliland markii horeba laga diiday. sidoo kale saaxiibayaal waxaa nasiib darro aad u weyn in dad kale oo mas'uuliyiin oo runtii boosas weyn Somaliland ugu jira ay ka qayb galaan xafladda lagu xusay Kristaanka. sidoo kale diinta Masiixiga ayaa sidoo kale ku xusayaan meesha iyadoo loo aqrinayo kitaab Masiixiya, sidoo kale loona dhiibay dadka mas'uuliyiinta ee Muslimka boqolkiiba boqol ee reer Somaliland in kitaab Masiixi loo dhibo, runtii kaas oo sawirrada markaad eegtid ay akhrinayaan. runtii dadkan ayaa la moodin, waxaana arrinkan si toos ah u cadeeyay suxufiga weyn ee Cabdimaalig Muuse Coldoon, kaasoo si weyn gaar ahaan dadka Soomaaliyeed geeyga Soomaalida aad uga yaqaanaan, kaasaa bartiisa Facebook ku shaaciyay in Somaliland kiniisadda ay si hagar la'aan ah uga howlgashay, waxaana mas'uuliyiin ka qayb galay. haddaba halkan saaxiibo waa kanaalka xogbixinta wararka oo u taagan saaxiibo in markasta soo gudbiyo waxyaalaha social media ugu hadal haynta badan ee ka taagan isla waqti xaadirkaas. haddaad ku cusubtay saaxiib channelkan rukumo oo subscribe saar, like na saar muuqaalkan si uu sii gaaro dad badan oo ka mid ah saaxiibteena.